ma u maleysaa inaad si fiican u taqaano qofka aad la socoto? haddii sidaas tahay waxba kama dhibeyso inaad had istijaabiso. tijaabadan waxay kuu sheegi doontaan ilaa iyo inta aad taqaano jacaylkaaga. waa basiid 10 su'aal fudud oo aad yes ama no uga jawaabi karto, waxaana tirsataa inta yes aad hesho. okay, diyaar ma tahay? haddii aad nagu cusub tahay walaal qaali, subscribe dheh. haddii aad hore noola joogtana welcome back to my YouTube channel. no bilaab. su-aasha koowaad, jacaylkaaga jacayl hore ma laha? su-aasha labaad, ma u maleysaa inuu ku qalmo ama inay ku qalanto jacaylkaaga? su-aasha saddexaad, adiga iyo lamaankaaga waxyaabo isku mid ah miyaad xiisaysaan? su-aasha afraad, ma ku kalsoon tahay jacaylkaaga? su-aasha shanaad, adiga iyo jacaylkaaga wax kasta ma isku sheegtaan cabsi la'aan? su-aasha lixaad, ma dhihi kartaa shaki la'aan inaad sidaba isku jeceshihiin? su-aasha toddobaad, jacaylkaaga asxaabtiisa ama familkiisa qaar ka mid ah ma ku yaqaanaan adiga? su-aasha sideedaad, ma ku fahmaa jacaylkaaga xaalad kasta la joogaba? su-aasha sagaalaad, ma u maleysaa inaad jacaylkaaga mustaqbalaas la dhisan doontaan? su-aasha tobanaad, jacaylkaaga ma u sheegi kartaa sirahaaga, asagana sirihiisa ma kuu sheegi karaa? okay, ka hor intaan natiijada ku siinin waxaad igu sharaftaa inaad la garayso muuqaalkan, wax badan ayuu ii yahay. okay, natiijada eber ilaa 4 yes ayaad heshay. 40% ayaad taqaana lamaankaaga. xiriirkiina laga yaabaa inuu hadda bilow yahay. hore u soco, sameeya, si fiican isku barta, farxadiina ku dadaala. 5 ilaa 7 yes haddii aad heshay. 60% ayaad taqaana lamaankaaga. xiriirkiina meel fiican ayuu joogaa, waad isku qalantaan, hore u socda. 8 ilaa 10 yes ayaad heshay. 80% ayaad taqaana lamaankaaga. xiriirkiina waa xiriir aad u qurux badan, wax badan waad istaqaanin, waana isku qalantaan. hambalyo, waxaan sokanaba korkiina. meeqa yes ayaad heshay? dhanka comment noo reebo, waana ku mahadsantahay daawashada videowan.